Wafdi ka socda Dowladda Federaalka Soomaaliya oo hogaaminayo Wasiirka Wasaaradda Batroolka iyo Macdanta Xukuumadda Cabdirasaaq Cumar Maxamed ayaa maanta waxa ay ku wajahan yihiin magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika. Wasiir Cabdirasaaq Cumar iyo xubno la socda ayaa magaalada Johannesburg uga qayb galaya shirka toddobaadka shidaalka Afrika oo maalinta beri oo Isniin lagu wado inuu ka furmo magaalo xeebeedka Cape Town ee dalka South Africa. Shirkan ayaa waxaa isugu imaan doona oo ka qayb galaya madaxda ka socota dalalka kheyraadka leh iyo shirkadaha iyo dalalka kale ee daneynaya arrimaha la xiriira shidaalka, waxaana shirkaasi laga jeedin doonaa khudbado kala duwan. Wasiirka Wasaaradda Batroolka iyo Macdanta Xukuumadda Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Maxamed ayaa kulamo dooceedyo la qaadan doona qaar ka mid ah madaxda ka qayb galaysa shirka toddobaadka shidaalka Afrika. Wasiirka ayaa sidoo kale marka uu shirku soo idlaado maalinta Khamiista habeenka Jimcaha soo galayso la kulmi doono jaaliyadda Soomaaliyeed ee Cape Town. Waa safarkii ugu horeeyay ee Wasaaradda Batroolka iyo Macdanta uga qayb gasho shirka caalamiga ah kaasi oo ka socda dalka South Africa tan iyo intii ay jirtay xukuumadda danqaran. Shirkan ayaa kusoo beegmaya xilli maamulada xubnaha ka ah Dowladda Federaalka Soomaaliya ay kasoo horjeesteen bayaano horey uga soo baxay Wasaaradda Batroolka iyo Macdanta. Anisa Axmed Maxamuud, Anisa Anuush, VOS TV, magaalada Muqdisho.